munaasabad lagu xusiyay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegatay aasaaskii ururka lagu magacaabo nusget oo ay leeyihiin ardayda jaamacadda nugaal oo lagu soo bandhigay tallaabooyinka horumarineed ay qabteen amintii ay dhisnaayeen. munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta jaamacadda nugaal, bahda waxbarashada, ururada wadaniga ah, ganacsatada, dadweynaha kala duwan ee reer laascaanood, waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda nugaal Dr. Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafole oo tilmaamay tallaabooyinka ururkani ku tillaabsadeen muddadii 2 sano ahayd. waxa uuna ku ammaanay shaqadii firfircoonida lahayd ay u hayeen bulshada. kasoo qayb gashay xafladan sanad guuradii labaad ee ay noo soo agaasimeen dhalinyarada nusget. waxaan mahadinayaa intii qaban qaabisay gurigan aynu fadhino ilaa iyo banaankiisa ilaa iyo labiska ay xidhan yihiin koofiyadaha isbedelka ka muuqda cariga. waxaan mahadinayaa ardaydii iyagu ka shaqeynayay muddo 3-4 casho ka hor hoolkan isaga ah oo quruxdan iyo nidaamkan u yeelay. Dr. Cabdirasaaq Maxamed Aadan Lafole wuxuu aad ugu dheeraaday xiriiro ay jaamacad ahaan la soo sameeyeen jaamacadaha kala duwan ee ku yaala wadamada caalamka iyo weliba kuwa u soo diray macallimiin khibrad aqooneed leh iyo qaar kale oo jaamacadda nugaal ay ka heshay casuumaad sida jaamacadda Kuwait University. waxyaabihii noo xasilay 3 shay bay ahaayeen inaanu soo helay networking jaamacadaha aanu ku xidhanahay, in aanu soo helay resources agab tacliinta loo adeegsado, iyo in aanu oo ay kamid yihiin macallimiintaas hadda halkaa fadhiyo oo 4 ah, in aanu soo helay wax loo yaqaan muxuu ahaayay networking resources iyo promotion. dad inaanu isa soo baranay jaamacadaha ugu waaweyn wadamada ku yaaleen inaanu isdhaafsanay isbarasho iyo aqoon isweydaarsi oo ay maanta macallimiin ay nooga yimaadaan ardaduna ay aadi karto waqtiga masterka ay yihiin aan ku soo gashay dalka Kuwait iyo jaamacadda Kuwait University. aanu ka helay martiqaad oo aanu ka qayb geli doono haddii Ilaahay yahay oo aanu uga qayb geli doono labadeeduba 3 arrimood in aanu insha Allah tacaala ka wada hadalay. waa maxay? waa fidinta iyo ballaarinta dhamaystirka dhismaha jaamacadda inoo socdo. gudoomiyaha ganacsatada gobolka Sool aana gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom Cabdirasaaq Axmed Warsame oo isaguna madashaasi ka hadlay ayaa si kaliya laaba u soo dhaweeyay tallaabooyinka ay qaadeen dhalinyaradaasi. waxa uuna ku dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii ambaqaadaan dadaalada noocaas oo kale ah. waxayna halkaasi hadallo kooban ka soo jeedisay madaxa hay'adda MBA ee gobolka Sool Shukri Xasan oo sheegtay inay hay'ad ahaan aanay haatan ballan qaadaynin balse shakhsi ahaan ay ka qayb qaadan doonto howlaha ururkan nusget oo bulshada u hayo. dhalinta wax ka barata jaamacadda nugaal oo isku bahaystay qaarkood ururka nusget ayaa halkaasi ay ku soo bandhigeen riwaayad ay ku eegayaan isbedelka dhaqankii hore iyo dhaqanka imika la taagan yahay, iyadana howlka jaamacadda si weyn loogu xardhay dhammaanba agabkii aqal Soomaaliga loo adeegsan jiray. riwaayadaasi ayaa ka turjumaysay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida. Warqada faaduga taa qarni hore wax laga baxay maxaa qorta ku sumay caalamka qashaafay suulka qaawanida doorbiday. bismillah bismillah xayir cabdidaar axmed xayir TV-ga caalamiga Royal magaalada Laascaanood.